kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba noo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacyiga bulshada oo ah barnaamij toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka Soomaali News. daawadayaal toddobaadkan barnaamijku wuxuu ka imaanayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo Qaalidil Kacaasa waxaana toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonaa markii ugu horeysay magaalada Beledweyne waxaa lagu soo bandhigay bandhig loogu magac daray bandhiga buugaagta Hiiraan ka oo lagu soo bandhigay buugaag ay qoreen hal abuurro Soomaaliyeed oo da'yar ah oo ku nool caasimadda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ugu ah isla markaana ku wareysan doonaa Fardowsi Cabdikariin Aadan Shukri Cabdisalaan Yuusuf iyo Saciida Cilmi Cabdi oo kamid ah gabdhihii qoray buugaagta lagu soo bandhigay carwada buugaagta Hiiraan ee dhawaan lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Farax Maxamuud Xiirane oo loo yaqaan Farax Lamaane oo ah agaasimaha carwada buugaagta Hiiraan oo lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ugu horeyn waxa su'aasha ugu horeysa weydiinaya Saciido Cilmi Cabdi oo ayadoo kamid ah gabdhihii soo bandhigay buugaagtii lagu soo bandhigay bandhiga buugaagta Hiiraan Saciido marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa bal buugga aad qorteen iyo waxyaabaha aad ku soo uga hadasheen buugga anigoo si guud idin weydiinaya su'aasha ugu horeyso qof walba buugga uu qoray magaciisa iyo waxyaabaha uga hadlay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سعيد علم عبد الوهاب waxaan qoray buug la magac baxay hooyadii la hilmaamay buuggaas magaciisa waxaa la hooyadii la hilmaamay wuxuu ka hadlayaa hooyada Soomaaliyeed ee miyiga ku nool iyo waxyaabaha ay qabato hoostiisa hooyada Soomaaliyeed ee miyiga ku nool intii wax taraankeeda ay qabanayso buugga ku sheekeynaya waxaa kaloo buugga ku xusan xuquuqda hooyada leedahay hooyada caafimaad darrada haysato iyo caafimaad miyiga ku qabto hooyada sidii caruurta u xanaanayso sidii saygeed u xanaanayso waxyaabo fara badan oo buugga ka hadlaya buugga waxaa kamid ah waxyaabaha ku qoran diinta islaamka hooyada أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وشور عبدالسلام يوسف بوغا أنا قرأي وحان لغاها اللي معانك Soomaaliyeed قيميسا بوغا مقعيس وحا لا براها ملقاها براها Soomaaliyeed وحا وكاها اللي معانك Soomaaliyeed iyo sida xushmada uu leeyahay macalinka Soomaaliyeed oo kale ardayda aan ixtiraamin macalinkooda dhibaatooyinka ay la kulmi karaan oo kale waxyaabo badan ayuu buugga ka hadlayaa bismillaah magacaygu waa Fardowsi Cabdikariin Aadan buugga aan qoray ogaankiisu yahay dhalinyarada maanta iyo dhibta haysato waxyaabaha ugu hadlay buugga waxaa kamid ah dhibaatada haysato dhalinyarada Soomaaliyeed qodobada aysan ku xusan waxaa kamid ah dhibta dhalinta haysato oo dhibaatooyin aad u fara badan sida dhibaatooyinka tahriibka dhibaatooyin shaqo la'aaneed dhibaatooyin tacdiil lagu geysto dhalinyarada ama jirdil ha ahaato ama inay magaalooyin ku dhacayaan muqaadaraad iyo waxyaabo badan ay isticmaalaan iyo buug waxay kaloo ka hadlay qodobada ku xusan waxaa kamid ah talooyin ama sida xal aan ugu heli lahayn aan ugu bixi lahayn dhibaatooyinka la haysto maanta ومحسنتها شكرا وكوسو لابانيا مركنا فردوسو أنا راجع وكوسو لابانيا مركنا وحسينا يا سعيد علم عبد سعيد أديكو سوكو بيا بوقع صوبان لكتي مهمتها بالشدة أولى وحيابا واحد buugga muhiimada badan ayaa ku jira muhiimada ku jirta buugga waxaa kamid ah macquul ah da'yarta ku nool magaalooyinka in hooyada Soomaaliyeed ee miyiga ku nool waxyaabaha haysto ee ka warqabin markii hooyo la dhaha qof walba guriga hooyadiis joogto oo kaliya ka warqaba hooyada Soomaaliyeed ee miyiga ku nool waxyaabo fara badan ayaa haysto dhibaatooyin badan ayaa haysto caafimaad darro badan ayaa haysto amni darro badan ayaa haysto markii buugga qofku akhriyo faa'iido badan ayuu ka helaa xag diiniyan waxa laga yaabaa qofka inuu aayado oo haystay laakiin aayadaha markuu ku arko xasuus gooni ayuu yeelanayaa markii magaalada la joogo faa'iidada hooyada Soomaaliyeed magaalada joogto faa'iidada lagu qabana haddana markuu qofka akhristo faa'iido fara badan ayuu soo kordhisa عندك شيء كذا وحيابها مدي الله بوك waxaa kamid ah buuggayga waxyaabaha ku qoran waxaa kamid sheeko gaaban oo gabar Soomaaliyeed oo intay xamilo noqotay dhacdarowday dhibaatooyin badan ku noqotay ayadoo reerka guuraayo ay moodada ku dhashay
markaasaa markaan aan buuggeeda qorayo waxyaabihii murugada ugu badnaa waxay hooyadii Soomaaliyeed ayadoo guuraysa oo dhashay way dhiig baxday markay dhiig baxday markaas maamadii ii sheekeynaysa ani waayo waqti xadirkaas lama joogo waxay tiraahday waxaa loo qali tiraahday lax jabsatay waxaa laga wadaa lax weynaatay oo dhiig badan leh markaas waxay tiri laxdii markii loo qalay habeen kastoo jirkeeda kamid ah dhiigga loo shubo wax aan qaadan waayay ii noqotay aniga buuggay waxyaabaha kale oo ku xuso waxaa ka mid ah hooyada Soomaaliyeed abwaan Raawi adduunya aan qaraba Allah u naxariistay wuxuu ka dhahay hees qiimo badan ayuu ka qoray gabayaal badan ayuu ka qoray gabayaashaas ma ku jiraan xasilaya Firdawsa Cabdikariin Aadan Firdawsa su'aal lamid ah ayaan ku weydiinaya adigoo soo koobaya buugga aad qortay muhiimadaha bulshada uu leeyahay runtii buuggan aan aniga qoray muhiimadda uu leeyahay isleeyahay waxaa ka mid ah talooyinka iyo sida talooyinka aan siinayo dhalinyarada ama halka haddii ay akhristaan ama dhalinta inay ka bixi doonaan insha Allah halka waxaa ka mid ah in dhalinteena horta ay isku kalsoonaadaan ay isku calolfiyoobaadaan runtii ay ka baxaan qabyaaladda iyo waxyaabahan la hareerayay run ahaantii buug waxyaaba aad u badan baa ku xusan dhalinteena haddii u istaagto dhabarkana u xirato sidii dhibaatooyinka aan ugu bixi lahayn runtii waan ka bixi karnaa aaminsana insha Allah shukri adiga oo soo koobaya buugga aan soo bandhigtay waxyaabaha ugu hadashay iyo muhiimadaha bulshada u leeyahay buugga aan qoray wuxuu ka hadlayaa sida aan hore u sheegay macalinka Soomaaliyeed runtii muhiimad aad u weyn ayuu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed waayo tan iyo burburkii dalka waxaa dalka soo samatay bixiyay oo yacni ubadka Soomaaliyeed soo barbaarinaya waxay ahaayeen macalinka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed waxay dhexda u xirteen sidii ay xaaladda adag ee dalka uu ku jiro ay marnamo ubadka Soomaaliyeed aynan u noqonin kuwo aanan aqoon lahayn marka macalinka Soomaaliyeed ayaan uga hadlayaa buugga sida mas'uuliyadaha macalinka saaran oo kale bulshada Soomaaliyeed wuxuu u leeyahay muhiimad aad iyo aad u weyn Firdawsa waxay sheegtay inay qortay buugga dhalinyarada maanta iyo dhibta haysata yaa kala tashatay buugga abuuritaankiisa waad caawimaad aad heshay runtii buugga qoritaankiisa caawimaad dhalinyaro badan baa igu siisay ha ahaato qoraalkiisa ha ahaato xog aruurintiisa muddada la qorayay waa dhalinyaro fadal badan baa igu siisay sidii aan u higsan lahaa bulshadii wax aan ugu soo bandhigi lahaa dhanka famigana maasha Allah si wanaagsan baa lay taageeray sidaan u soo bandhigi lahaa buuggan aan bulshadana wax u qoraal iyo aan ugu tago ama ahatana dhiirigelin u noqdo dhalinta Soomaaliyeed qaasatan kuwa gobolka Hiiraan ku nool aan noqono dhalintii ugu horeysay ee gobolka wax barto waxaan u sheegi kartaa waxyaabaha buugga ku qortay mid labo ee uga hadashay dhibaatooyinkaas dhalinyarada Soomaaliyeed maanta runtii qodobada aan ugu hadlay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhalinyarada haysto ayagoo aad u fara badan qaybaha aan soo qaatay waxaa ka mid ah qabyaaladda dhalinta qaybta ay ka marayso waxaa kaloo ka mid ah tahriibta waxaa kaloo ka mid ah shaqo la'aanta iyo doorka ay ku leeyihiin horumarinta dalka gabayo oo ku jiro buugga way jiraan misena ay culisay dhalinyaro daa'ir ah Soomaaliyeed markaan siinayaa Saciido inuu weydiinaya su'aal la mid ah Saciido yaad caawimaad ka heshay oo ka caawiyo qorista buugga maadaama ognahay in wax la qoro ama la akhriyo ay tahay mid aad u dhib badan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hooyaday oo waxaan ahay haddayna ayada ahayn la'aanteed aan jiri lahayn sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa la'aantood buuggayga qoritaankiisa ayna i suurtagali lahayn walaashay Hani Cabdiraxmaan iyo gabadh ugu qaali ah oo qoraa oo Maxamed Rajax Alfaar qaay oo talooyin badan siisay oo kaga saalid qaatay waxaa sidoo kale arbixintiisii iyo juhdigiisii ugu aasaaday macallimiinteeda qaaliga ah oo ka mid yahay Ustaad Cabbaari maamulaha jaamacadooda Ustaad Shafiic Cabdisalaam Cilmi intaba dadkaas haddaynan ahayn waxaan ahay maana noqdeen ayaga ayaana tala iyo tusaale iyo mar walba meel aan markii aan wax helo aan u hiigsada ayaga la'aantoodna maana noqdeen qof maanta meeshaas ku fadhiisto
wuxuu qoray iyo wuxuu qabtay bulshada hor imaado maan noqon lahay mahadcelintaas markaan ka soo tago buuggeeda juhdigiisu boqolkiiba 77 hadaan anigana jir leh isla imaadeen aniguna ayaga jir leh imaadeen shukran ya markaan siinaya shukri ma jira buug aad hore u qortay adiga buug aan hore u qoran jirto balse buuggan higaha baraha Soomaaliyeed waa buuggii ugu horeeyay aan qoro run ahaantii waxaan kaga daysaday walaashay Saciido oo bandhigan hadda Hiiraan ka dhacay ka soo bandhigtay buuggeeda bandhiga ka hor soo bandhigtay buuggeeda waxay ku soo bandhigtay jaamacadda Hiiraan Saciido walaashay Saciido aad iyo aad ay mahadsan tahay waxaan leeyahay iyada ayaan kaga tusaale qaatay waxa iga caawiyay dad aad u fara badan sida walaashay Hani Cabdiraxmaan oo iga caawisay tafaftirka iyo eray bixinta af Soomaaliga sidoo kale waxa dadkii i caawiyay oo idil waxaan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin run ahaantii markii qoraanimadu wax sahlan ma aha marka aad wax qoraysid waxaa laga rabaa waxa aad qoraysid inaad aqoon aad u leedahay ma aha wax sahlan marka hore waa inaad wax aqisaa aad wax badan aad daraasaysaa ma aha qoraanimadu wax aad iyo aad u sahlan waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteyda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii gacan igu siiyay soo saarista buuggan shukran ku soo laabanaya markaan aaminsanayaa Firdawso ma jira adigu buug aad hore u qortay haduu dirsan waxaan u sheegay runtii ma jiro buug aan anigu hore qoro oo buuggeygii igu horeeyay aan qoro buuggan run ahaantii buuggayga waxyaabaha igu dheliyay in aan qoro runtii markii aan arkay dhalinyaro badan oo dhibaatooyin haysto maalmaha ka mid ayaan waxaan arkay anigoo jaamacadda ka soo baxay wiil yar oo da'yar ah oo aan ku qiyaasay da'diisa 8 jir ama 9 jir aan ku qiyaasay oo cunaaya waxyaabaha daraagiska oo meel la fadhiyo jaad cunaaya dhalo shah ugu jirto agtiisa yaala sigaar cabaaya su'aal badan diiriso waxaan dhahay maxaa kugu xisbay inaa wax aan cuntid kama taqaanidii laga tago yiri dad agtiisa fadhiya waxaan dhahay yiri cunugan yarta oo waxaa cunaaya maxaa qoys lana hayso duruuf ma hayso u keentay in waxaan oo cuno runtii waxay dhaheen maye waa hubigiisa waaye runtii dhibaatooyinka dhalinteena maanta haysta kan oo tahriibka ku dhimanaya kan wax bartay oo shaqalaanta hayso kuwii kale ka soo harayna ay ku dacataysan yihiin magaalada runtii ayaa buuggan igu dhilisay in aan qoro waxaan rabaa inaan si guud idin weydiiyo markii ugu horeysay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa lagu qabtay bandhig lagu magac daray bandhiga buugaagta Hiiraan oo lagu soo bandhigay qaar ka mid ah buugaagta adinku aad qorteen sidoo arkaan buugaagta bandhiga buugaagta Hiiraan ee lagu qabtay magaalada Beledweyne Saciid ayaan ku bilaabay ما شاء الله ما سويت لك عند الكعسة حقيقي إن عروض بوغ لقبته أما بلغ بوغ لقبته وحي يرجلون بطه أنا قلت نفس الحال كان قف شخص كل جسمك وما يستوى واحد صوبا لقبته يمركز ضد جمع ما يسوي استعلاء صوبا لقبته وكلا قرح له إن أنا سدهان تي كل جي أنا والله صوبا لقبته لكن تي ما أنت أصلا مرة بوغ تسامين دوني يصير aniga maalintii markaa soo bandhigtay dad ayaa ugu soo joogtay oo waxay ogaadeen in dad qof walba asi taykal isku yeeli karo kor isku qaadi soo bandhigitaankeenii iyo intaasoo bulsho imaanshaheennini dad badan oon ogahay oo qoraayaal ah oo meel ay wax la hiigsadaan waayeen ayay waxay u noqonaysaa jaanis way ka soo hirinayaan waxay helayaan waqti ay meel wax ku soo bandhigtaan waxay helayaan jaanisyo badan kadib marka qof walba oo awal hore waysanay risaaladiisa meel ku dirsado anaga ayaa waxa caroodan ayaa waxa u noqotay muftaaxi nolosha ku furanaay waxaana filaya insha Allah taala inay dad badan oo qoraayaal ah ama abwaano ah ama suugaanista inay soo bixi doonaan oo awal hore ay ciileysay meel wax ku soo qabatay meel wax ku bandhigtay ma haysid waxaan hadaa qabatay inta la aadi doontaa way jiraan dad oo hore wax u qoray iskuulada iyo dadka asxaabtooda oo kale social media ku soo sheekeynay argaysa qof qoraa ah ay ku dhahay oo Facebook-giisa wax soo qorqoray laakiin markii hadda xalfadaan inta la qabtay dad badan waxay ogaadeen inay jiraan dad hore u socday oo meeshii taagiin meel ka dhereegsanay waan ku faraxsanahay in xalfad noocan oo kale noocan oo kale qabto waxaan rajaynayaa in badan inuu soo noqdo si ay ummadda reer Hiiraan iyo ummadda Soomaaliyeed ay u taxadiraan
runtii waxaan ugu arkaa farxad aad u weyn iyo horumar uu gaaray gobolka iyo dhalinteena oo horumar higsanaysa run ahaantii oo isku dayday inay wax qoraan misene waxbarashadoodii saa'iday ayaan isleeyahay run ahaantii maalintii bandhigaas aan ka soo qayb galnay bulshada aan ka soo muuqanay bulshada waxaan kala kulannay marxabeyn iyo hor u socod inaan hore u socono runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wax qoro kana soo qayb gala carwada buugaagta ee jiraan book fair هذا أي أمر شوفي أدنى سيدو أركا عرب buugaagta lagu qabto waxaan u arkaa inay tahay horumar aad iyo aad u weyn oo aan tiigsanay maadaama aan noqonay dhalinyaradii ugu horreysay ee gobolka u kacda ee noqoto qorayaal insha allah waxaan rajeynayaa dadka dhalinyarada da'da yar ee ku nool gobolka inay nagu daysi doonaan aan u noqon doono daysi aan u noqon doono aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo waa wax aad iyo aad u muhiim ah badana maxaa jeceshahay inaad adigu wax hadda waxaa soo bandhigay buug ka hadlayo baaraha Soomaaliyeed midda oo ugu magac daray midgaha macalinka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa buugaag fara badan inaan soo saari doono insha Allah sanadaha xiga waxaan rajeynayaa in Hiiraan Book Fair uu noqon doono sanadkiiba mar inuu dhaco doono insha Allah taala waxaan rabaa inaan markaan aansiiyo dhanka Firdawso buugaagta oo lagu baraa waxyaaba horumarka bulshada wadani jacayl qabo wuxuu jecel yahay inuu badan adigu maxaa jeceshahay inaad wax ka barto runtii waxaan jecelahay aniga arrimaha bulshada inaan wax ka qoro sidoo kaleente inaan wax ka qoranto waxyaabaha markaasii taagan oo arrimaha bulshada ah ayaan jecelahay in bulshadayda aan soo bandhigo qalinkana aan u qaato sidii ay iyaga xal ama ugu yeeli lahaayeen dhibaatooyinkaas haysta arrimaha bulshada ayaan diiradda saari doonaa insha allah gudfeerka labaadna insha allah buugaag baa kaga soo qaybgeli doonaa hore waa usii qori doonaa intii aad ka howlaneed qorasha buugaan ma jiraan caqabada aad kala kulantay haddii ay jiraan maxaa noo sheegi runtii caqabada way jiraan haddii shaqo weliba oo la qabanayo caqabad ayay leedahay qoraalka buugaana caqabadooyin aad u fara badan way jiraan laakiinse wixii caqabad oo igu dhacay waxaan ku iloobi buugaan aan soo saaray runtii oo bulshadayda aan u soo bandhigay dhalinteena run ahaantii caqabadooyinkii ugu dhacaadan maalinta ayaan ku iloobay dugsigan markaan saciido adigu maxaa jeceshahay badanaa inaad wax ka qabto maarimaha jacaylka muwaadiniyadda maxaa jeceshahay inaad wax ka qabto adigu waxaa jira hadda buugaag badan oo qaarkoodna gaba ii ah qaarkoodna qaanooda farqa aan ka furiyay aniga xoogaa gudaha walaalada waa ka duwanah arrimaha bulshada wax ka qoro labada buug ee hadda aan ku hadlay midna waa mid si guud Soomaali uga hadashay hore si qaas aan meel gooni ugu qabtay qabyaaladu mid ka hadlaya midda kalena waa buug aan isleeyahay nafs ahaantiidu cajib gelin waxaan ka hadlay wuxuu yahay da'yari duqow wal siyaasi iyo islaam xukumi marka siyaasaddan xoogaa u yara waayo fakaltigaan bartaa iska siyaasi marka waxaan isleeyahay waxa baranaysid ama waxa aqoonaysid mararka qaar inuu ku nafacdo way iska yar roontahay marka dhinacaasaan hadda u janjeersan awal hore hooyo Soomaaliyeed iyo waxba wax ka qoray hadda dhinacaas ayaan u janjeersan aad u maasantahay markan waxaa sameeyay shukri intii aad ku howlaneeday buugga maxaa is leedahay waxyaabaha aad ka qortay buugga oo is leedahay bulshadu way kaayadayn karaan mid wada buugga qof markuu wax soo bandhigo maalinta ma yeelan karaan balse waxaan isleeyahay aniga waxa aad soo bandhigtay bulshada waxay u noqon karaan badaysi buugga waxaa qortay si ay sheegtay milkaha faraha Soomaaliyeed waxaa ku dooratay ciwaanka buugga ciwaanka buuggan waxaan ku doortay waxay ahayd caadifad aniga ugu dhalatay ani ahaantayda caadifad ugu dhalatay waxaan ku doortay waxaan jeclaystay inaan wax ka qoro macalinka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka haysta ardayda Soomaaliyeed noocyadooda iyo sidoo kale sifaadka ardayda wanaagsan ugu garan karo mas'uuliyadaha macalinka saaran waxyaabo badan ayaan u hadlay buugga ku dooratay ciwaanka magaca buugga dhalinyarada maanta iyo dhibta haysta runtii waxaan ku doortay waxaa laga garan karaa ciwaanka buugga oo ah dhalinyarada maanta iyo dhibta haysato dhibaatooyinkaas iyo markaan ka damqaday aan ka qayrooday dhibaatada dhalinyaradeenna Soomaaliyeed haysato runtii aanu nahay
haddii aan dib u fiiriyo buugagana laga heli doono insha allah dhalinyaro xilligii halgankii islaamka waxaa hormuud u ahay dhalinyaro horumar u ahay leegada ama ururkii SYL ka saaray hogaankeyga ka saaray gumaystaha dalkeena Soomaaliya waxaa hoggaan u ahaa dhalinyaro runtii waan garan karnaa awoodda iyo cizida ee dhalinyarada Soomaaliyeed leedahay misna waxaan ka qiirooday dhalintii awooddaas intaa la eg lahayd misna maanta ay haysato daciifnimadan iyo inta maanta oo dhibaato weyn caqabado badan ay la kulmeen aan ku doortay haweenkan tala jirtaan buug kala qortaa ها وكنت تلجرا بوك لا قرأ وليه بوك بدن أصلا بدي إن شاء الله إن عرب بوجات كتب إن شاء الله هيران بوك فيرتو إن شاء الله هنا كبسوا طيب كلا بوك هل إلا إن شاء الله ورجينا وحروا لما أنت نشوف مركو رئيسي ويجيو سؤال شو قدام بس سلوا فرمريو برالك أفكار سومالية حتى لو ينسوج من الإسلام sida loo hormariyo qoraalka af Soomaaliga macnaheedu sida loo hormariyo bulshadeena wuxuu ku xiran tahay umur walba horta sida iska dhigta ay ku xiran tahay balse waxaa muhiim ah in xoog la saaro dhanka waxbarashada da'yarta waayo da'yarta waa mustaqbalkii berri waa mustaqbalkii maanta sidoo kale waxyaabo badan ayaa jiro oo da'yarta Soomaaliyeed da'yarta wadan walba waxaa hormariyo waa da'yartiisa hadday xumaato wadankaasi wuu xumaanayaa haddii da'yartiisa ay wanaagsanaato oo waxbarasho wanaagsan ay hesho oo barbaarin wanaagsan ay hesho waxaa wuxuu noqonayaa wadankaasi wadan hormaray marka waxaan kula talinayaa dhammaan Soomaalida oo idil inay xoogga saaraan waxbarashada da'yarta Soomaaliyeed aniga waxay ila tahay waxaa gobol ama adduun lagu hormariyo markii loo helo dad leh oo wax bartay welibana ku bartay gudaha wadanka markastoo qofku meeshuu ku noolaa wax ka barto wuu ka tiyo badan yahay qofka banaanka ka yimid marka waxay ila tahay in dhalinyarada loo sameeyo barnaamijyo ay ku dhiiran karaan ay wax ku qabsan karaan markii taas loo sameeyo dhalinyaradii marka maadaama ay dad wax u qabanaya ay helaan waxaa suurtagal noqonaysa inay ayagana wax qabsadaan wixii maskaxdoodii iyo culintoodii iyo wax ka dhex buuxa inay soo sameeyaan laakiin dhalinyarada haddii sidii hadda wax badan oo wada ognaan u dayacayn hadday u dayacnaa waxaa la wayn doonaa qofba ummadda ka fikiraa la wayn doonaa mar allaala markii dhalinyarada la waayana waxaa la waayaa wadanka iyo wanaagiisiyaa la waayaa marka ani ahaan waxay la tahay in dhalinyarada la hormariyo si ay qoraalkii iyo afka Soomaaligii oo mid aan baaqiyin u noqonin markana waxaa siinayaa si loo hormariyo qoraalka afka Soomaaliga maxaa talooyin soo jeedinaysaa runtii si loo hormariyo qoraalka afka Soomaaliga ama tan horumarka dalka waa in la xoojiyaa waxbarashada guud ahaan ha ahaato mid diin iyo mid maadiba in ay dhanka dawladda u sameysay dhalinta mandate ay ku diyaariso dhibaatooyinka dhalinyarada haysta sidii ugu bixi lahaayeen runtii dalkeenana oo noqdo dal horumar leh haddii dhalinyarada la isku keeno oo waxbarashadooda hagaagsanaato oo dhan weliba bulshada dhankeedana laga caawiyo runtii dalkeena horumar waa gaarayaa dalka ugu wanaagsan ee dunida inaan noqonayna ayaa aaminsanahay Firdaws haddii aan ku weydiiyo sharood buu qortay waa soo bandhigtay waad ku dhiiratay inay bulsho horteed buuga qortay aad ku soo bandhigto iyo maanta oo taagan tahay wuxuu yahay shucuurtaada farqiga u dhexeeya runtii shucuurteeda farqiga u dhexeeya waa dareemi kartaa shalay horta juhdi badan oo la soo geliyay waa isleeyahay waqtigan waa ku timid shucuurteedana runtii aad ayay u kacsan tahay maantii anuu bulsho hor imaado bulshadeeda aan wax qor waxna ku soo bandhigo runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay markana waxaan rabaa inaan saciido cilmi cabdi aan in wax la qoro ama wax la aqriyo haddana bulsho horteed buug la qoray laga hor aqriyo waa arrin aad u adag shalood buug aad qortay soo bandhigtay iyo maanta waad taagan tahay wuxuu yahay dareenkaada ama farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta shalay iyo maanta waxaan kala ahay habeen iyo maalin waayo markaan keligay ahaayo iska socod waxbarashadayda iyo gurigayga aan joogay nafsad ahaantayda waxaan ku kalsoonana ma dhihi karin inaan bulsho hortagta wax sheegta maantana waxaan aaminsanahay haddii balad weyn oo idil oo hool la keeno
in dareenka aan qabo iyo waxa aan sameeyey aan bulshada ka hordhigi karo anoo welibana cabsi ku jirno geesinimo muujinayo waayo waxaan ogaaday mar walba waxa aa qabtid markaad sheegatid caafimaadkaada wuu saacidaya mar walba waxa aa akhrisay aa qortay markaad soo bandhigtidna adna wax baa faa'iiday oo waxa ogaatay heerkaa taagan tahay dadkii kale ee kugu heereersanaayeen waxay ogaanayaan wixii aad adiga maskaxdaada ka soo celisay ee aad keentay ay ayagana wax ka faa'iideynayaan marka farqi weyn ay ugu dhexeeya shalay iyo maanta ay kala tahay markaan ahay qof caadi ah iyo markaan maanta ahay bulshada aan dadka ka dhex muuqday oo qof qoraa aan noqdayn laba ra'yi ii kala too waa kala duwanay aniga shalay shucuurtayda aad farqi weyn ayaa u dhexeeya sababtoo ah shalay ma isdhehaynin bulsho wax aad qortay ayaad bulshada hortagaysaa misene su-aalo lagaa weydiin doona aad ka jawaabi doontaa farqi aad iyo aad weyn ayaa u dhexeeyo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan magacaan ku yeesho bulshada aan ku dhex noolahay marka fariinta u diraysan marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka wax fariinta aan u dirayo waxay tahay horta waxaan fariin u dirayaa dhammaan bulshada reer Hiiraan ama bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero dadka hal abuurka leh ee bulshada dhexdeeda ku dhex nool هذا فرنت أجل سلامة الصوماليات قال أن تدك قراياشة كنا الصومالية si loo horumariyo dhalinta ama dadka wax qora loo dhiirigeliyo runtii in horta dhiirigelinta markay dhiirigeliyaan dhalintan waxay iyagana ku dhiirinayaan in ay wax qoraan haddaa maanta annaga wax aan qornay nagala aamuso oo bulshada ama magac ama hayatana dhiirigelin iyo marxabeyn aan kala kulmi waan laga yaabo inuu moraalkan hoos u dhaco haddii aan ayaga kala kulno marxabeyn iyo soo dhaweyn iyo kala kulno runtii qoraalkeenana uu sii badanaya dhalin lagu dayato daa'ir ahna wax badan bay qorayaan qoraalka afka Soomaaliga la qorana afkeena ayaa ku doorsanaya xaflada ayaa qabatay haday ahaan leedahay xafladii iyo inaad buuga aad qorteen bulshadii aad u soo bandhigtaan iyada ka caawiyay oo ku dhiirigeliyay xafladaada qabsubida xafladaas idin ka caawiyay waxaan ku bilaabayaa shukr horeen waxaan u mahadcelinayaa waalidiintayda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii gacanta igu siiyey caawiyey heerkan soo gaarsiiyey sabab u ahaa inaan wax ani aan qoro aan bulsho horteed la hor istaago aan dhaho waxaan ayaan qoray waxaan u mahadcelinayaa walaashay Hani Cabdiraxmaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ustaadkayga ustaad Maxamed Axmed Garee dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadkii gacanta igu siiyey tafaftirka iyo soo saaridda buugga hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo in aan heerka maanta gaarsiiyo marka xigta waxaan u mahadcelinayaa qoyskayga iyo waalidiintayda marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii gacan igu siisay tafatirka buugga soo saaritaankiisa guud ahaan dhalintii gacanta igu siisay iyo xoguruntiisa dhammaantiin waxaan leeyahay kulli kul jiro mahadsantiin aad iyo aad ugu mahadcelinaya Allah subxaanahu wa tacaala waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalkan qaaliga ah faarax lamaano oo juhdi badan bixiyay oo meel dheer nooga yimid oo xafladan quruxda badan inay qabsoonto waqti badan u geliyey markaan leeyahay saasne waxaan kurtigan juhdi waan gelinay laakiin asigana walaal qaali waa oo mudan in la xuso waalidiintaydii dadkii erebixinta buuggeena isku sameeyey adinka awriyaad qiimo badan oo habeenii maalin garab taagnayn waalidiin mahadcelinaya bismillahi rahmaani rahiim aad u mahadsantahay ilka case وانا وهم بلينا بعد سم نيوز عروضة طبعا وحين هو صورة قشي فائدة وحول هذا هاي ده كور مرة مدة فائدة طبعا مدة فائدة وحياتها هاي إن يعني هذا الرهيران أما بلشة الرهيران وحقرته وحنا هندستو إن جانس وهشوا ماله كسب النجاتو مسرعية أما بوشوش أما يعني بلايس أنا أقول تلاقينا عيد ولي بقى وحقرتي waxyaabaha aqoonta ee bulshada Soomaaliyeed ay ka gado ama bulshada reeyaan qaasatan oo qofkaasi uu ku sugan yahay ama carwada anaga hirgeliyay bandhiga buugta Hiiraan Book Fair tan kalena waxay tahay waxyaabaha ay noogu hirgashay waxa kamid ah in markuu horeysa aan raadinay dad qorayaal ah gobolka Hiiraan ku sugan waad arkayseen dabcan gabdhi halkaas ku soo bandhigtay buugtii qoreen waliba waxa xusid mudan in arintani laga soo shaqeynay muddo aad u fog dadka isku howlan ay kamid ahaayeen waliba dadka qorayaasha halkaas ku soo bandhigtay ugu horeyso gabadha Saciida iyo Firdawsi iyo Shukri oo ahaa dadkii u dhabar adeegay programka inuu suurto galo iyo waliba team kale oo ka qayb qaatay in programka hirgalo
marka su-aasha alcamuum waxay tahay ujeedkeeda waxyaabaha ay noo suurtageliya waxaa ka mid waa marka hore inaan helnay dad qoraayaalaha yaad ka caawiyo marka dabcan xagga caawinta marka laga hadlaya waxay tahay mar haddii aad qabanaysid program intaas la eg dabcan waa dareemi kartaa xajmiga iyo ama awoodda uu leeyahay alla subxaana watacaala kasoo koow programkan waxaa isku xilqaamay dhalinyaro weliba fikirkooda mideeyey iyo xooggooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda dan kabacdi waxaa inoo suurta gashay in aan qabano programkan cid kale oo caawin ama naga sarreyso ama yacni gacan kale oo fan aan ka helnay ama gobol haado ama NGO haado ama hay'ad haado ma jirto bal laakiin waxaan dhihi karnaa aad uga faani karnaa oo weliba aniga nafsaanteyda aan agaasimaha carwada buwaagta Hiiraan Buugfara waxaan bogaadinayaa tiimka isku xilqaamay programka inuu dhaco weliba sidii standard caalami oo yani aan ugu dayanayno buugfeeradii wadanka ka hirgalay dabcan waxaana xusid mudan in uu programkan ahay kii afraad geyiga Soomaaliya laga hirgeliyay wuxuu noqonayaa kii koobaad gobolka Hiiraan khaasatan magaalada Beledweyne aan ku sugannahay aan ka hirgelinay wuxuu noqon doonaa ilaa hadduu yiraahdo weliba rajaynayna inuu noqdo mid continuous mise mid socdo sanadkiiba mar la soo bandhigo buwaagta qorayaasha dabcan taasina waxay tahay mid anaga hadda aan bilaabayna ma ahan waxay tahay waa mid yani soo jireen oo Muqdisho ka dhacday Garowe ka dhacday iyo Hargeysana ka dhacday taasina waxay tusaysaa in dhalinyarada reer Hiiraan ay noqdeen dhalinyaro isku tashtay dhalinyaro yani ogaaday inay u baahan yihiin meel ay wax ku soo bandhigtaan waxayna yani fursad ama jaanis siinaysaa ka sokow dhowrista afka Soomaaliga ama xifdinta afka Soomaaliga buwaagta halkaas lagu qoray iyagoo hay'an kuwa Soomaali ku qoran waxay mudnaanta siinaysaa qof kasta oo reer Hiiraan buug qoray inuu tuso bulshada inuu yahay qof qoraa ma haddii mar loo aadi jiray masraxiyada kale ama bandhigyada kale ka dhaca wadanka gudihiisa maanta waxaa jaanis wada reer Hiiraan in yani ay heleen meel buug ku soo bandhigtaan aniga nafsaanteed waxaan ahay qoraa weliba ku soo bandhigay magaalada Muqdisho second year kana ku soo bandhigay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxayna iyaga farxad badan tahay dabcan ma jirto maanta oo kale waayo aniga buug aan qoray oo bulsho Soomaaliyeed loo istaagay hadana second gobolkayga aan hor keenay iyadana waxay tahay farxad gooniya sidoo kale waxaan aan ahay dadka ku soo baray Muqdisho buug aan qoray waxa uu helo badkaada oo la jeeday caruurta Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed halka ay yani iska haleeli karaan ama halka yani ay tahay inay yani barbaarintooda ka qaataan cid walibana waan soo dhaweynaa oo programkan in ka qayb qaata rabo anaga waxaan diyaarinaynaa hadda halkii 2017 barnaamijkii objectiga iyo wixii lagu gaari lahay iyo istiraatiijiyada aan diyaarinaynaa waxaan rajaynaynaa ilaa hadduu yiraahdo inaan ka dhabayno oraada ay Hiiraan waa hoyga waxbarashada gobolka waa hoyga waxbarashada wadanka inaan ka dhabayno Soomaali kale oo ilaa oo nagala soo qayb gashanay waynagu jirtaa ajandaha inaan ka soo qayb galno sida abwaano dadka figuriska Soomaaliga ayna fahantoodana haddii ayna daawana waxaan leenahay waa ku soo dhawaan kartiin gacmo furan aan ku soo dhaweynayna gudahaan daawadayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijka wax toddobaadkan martiigu ahaa isla markaana ku wareysanaynay Firdawsi Cabdikariin Aadan Shukri Cabdisalaam Yuusuf iyo Saciid Cilmi Cabdi oo ahaa gabdhihii qoray buugaagtii lagu soo bandhigay xarun buugaagtii lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kaamirada waxaa iga qaabeynayay saaxiibkay Maxamed Yare tan iyo kaleeto dambe intaynu barnaamijkan mid la mid aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.